maalin kow bilowyada. eebba weynaa isagaa awood sare leh ammaanoo dhan isagaa leh waayo ereygiisa ka uumay dadka xayawaanka cirkayo dhulkaba samooyinka waxay soo bandhigayaan weynaantiisa cirkuna wuxuu tusayaa siday u tahay farshaxannimadiisa cajiibka ah wax kasta uu eebba sameeyey way fiican yihiin asalkiiba eebba wuxuu uumay dhulka iyo dhammaan geedaha xayawaanka iyo uunka badda ku jira eebba dhoobada wuxuu ka qaabeeyey ninkii ugu horreeyey ka dibna sankiisu ku afuufay neefta nolosha qofkii ugu horreeyey waxaa loogu magacaabay abka aadan ka dib ilaahay wuxuu abuuray qof dumar ah si ay u noqoto wehel iyo xaaskii aadan waxaana loogu magacaabay abootaxaawo ilaah aadan iyo xaawo wuxuu siiyey heybaddiisa awooddiisa ka abuuray rag iyo dumar si ay u yeeshaan xiriir isaga u dhow ilaah agtiisa farxad ayay ku noolaayeen beertii la odhan jiray eden maanay jirin silic iyo geeritoona eebbaa wuxuu aadan ku amray midhaha geedaha beerta ku yaal oo dhan waad cuni kartaan hal mooye haddii aad cuntaan midhahiisa waad dhimman doontaan laakiinse ibliis ayaa xaawo duufsaday inay midhahii eebba u diiday cunto midhihii ayay soo goosatay wayna cuntay qaybna ninkeeda ayay siisay wuuna cunay iyaga ficilkooda xishood darrada ahaa ee cadeeci darrada waxaa go'ay xiriirka iyaga iyo eebbaheenna u dhexeeyey eebbu waa daahir qof aan daahir ahayn ma la joogi karo ka dib ilaah aadan iyo xaawo beerta eden bannaankeeda ayuu soo saaray kana mamnuucay ceebna la dhibtoodin waayo ilaahooda ayay ku xadgudbeen taasi waxay abaalmarin u noqotay inuu faracooda xanuun iyo dhimasho dhaxlaan laakiin eebba ku talagalkiisa ma ahayn inuu noo cafiyo ceebta dembigeenna kadibna wuxuu dadkiisa u diyaariyey dariiq uu ku soo celin lahaa xiriirka u dhexeeya isaga iyo innagoo ah faracii aadan iyo xaawo qoraallada eebba wuxuu noogu muujiyey ku talagalkiisa oo ah inuu bini'aadanka ka badbaadiyo ciqaabta ay kasbadeen kana cafiyo dembiga iyo ceebta ay geysteen si ay dib ugu noqdaan xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyey eebba wuxuu biriq ugu talagalay u muujiyey nebi ibraahim nebi ibraahim eebbihiisuu rumaystay wuuna isku halleeyey eebbaa wuxuu nebi ibraahim ugu ballanqaaday inuu barakeeyo qaramada adduunka oo dhan dartiisa wuxuu kaloo u ballanqaaday inuu faraciisa badinayo sida ciidda badda iyo xiddigaha samadda oo kale nebi ibraahim ilaahiisuu rumaystay ka dib ilaah wuxuu ka dhigtay adeegiisa xaqa ah wuxuuna ugu magacaabay saaxiibka ilaah maalin ayuu eebbe ku amray nebi ibraahim inuu wiilkiisa gowraco si uu u jarribo nebi ibraahim rumaysadkiisa iyo dhaqankiisa nebi ibraahim wuxuu ogaa inuu yahay wiilkan keligiis eebbe ugu ballanqaaday inuu faraciisa badinayo dartiis haddana eebbihiisa rumaystay ereygiisana ku dhaqmay sidaas awgeed nebi ibraahim wuxuu isku diyaariyey inuu eebbaha u gowraco wiilkiisa laakiinse eebbe wuxuu ku yidhi ibraahimow wiilka ha dhaawicin haddana waan ogahay inaad iga cabsato oo aad diyaar u tahay inaad ereygayga ku dhaqantid ka dibna nebi ibraahim hortiisa ayuu ka arkay wan geeso leh oo duurka ku jira wanka eebbe u keenay ayuu soo qabsaday beddelka wiilkiisa ayuu u sooriyey eebbe markii eebbaha naxariista badan uu ku beddelay wiilkii nebi ibraahim wankii tusayna inuu ka jecel yahay nebi ibraahim iyo dadka oo dhan
waxaa kale uu muujiyey ku talagalkiisa inuu keeni doono sooriyadii ugu dambaysay beddelkii bini'aadamka. eebbaha naxariista badan lahaa wuxuu horay kitaabkiisa daahirka uu ku muujiyey inuu soo dirayo qof daahir ah oo uu u dhinto beddelka bini'aadamka dembigooda, si loogu cafiyo dembiyadooda iyo ceebtooda loona asturo. dhimashadiisu waxay dib u soo celisay xiriirka eebbe. rasuulladii waxay horay qofkaas ugu magacdareen duubanaha masiixa, waxayna saadaaliyeen eebbe inuu soo diraayo wiilkiisa duubanaha masiixa oo ummadda oo dhan badbaadin doona, eebbana la wadaagi doona. rasuulladii hore waxay saadaaliyeen wax badan oo ku saabsan hawsha duubanaha masiixa iyo waxyaabo ku dhici doona ee ka horreeya. nebi daawuud wuxuu saadaaliyey in eebbe ku andacoon doono masiixa kuna odhan doono, adiga wiilkaygi baa tahay. rasuulladii hore masiix waxay sarbeeb ugu magacaabeen wiilka eebbahey. waxay ahayd inay tusaan ummadda duubanaha masiixa xiriirka ugu dhow la leeyahay eebbe, kii gacantiisa midigta ahaa eebbe. xilkiisuna wuxuu tusaa hawsha badbaadinta iyo boqortinimada adduunka. rasuul ishaaya wuxuu saadaaliyey gabar bikro ah inay uuroobayso oo wiil dhali doonto. rasuulladii waxay saadaaliyeen inuu masiixa ku dhalan doono tuulada baytulaxam oo ku soo geli doono yeruusalaam dameer sida suldaan oo kale, oo mid ka mid ah xertiisa ugu dhow inuu ku shirqooli doono 30 sumun oo qalin ah. nebiyadii waxay saadaaliyeen inuu masiixa naftiisa sooryo u hibayn doono, dhimashadana ayuu ka sarkici doonaa. rasuul daanyeel masiixa wuxuu ugu magacaabay wiilka aadanaha. daruuraha dhexdooda ayuu kor u baxay ilaa iyo jannada, ilaahna siinayo awood weligiis uu ku maamulo ummadda adduunka oo dhan si daa'im ah. sayid ciise 2,000 oo sano ka hor ayuu adduunka ku noolaa. markii ay dadkii arkeen mucjisooyinku samaynayey, waxay la yaabeen oo ninba nin kale weyddiiyey inuu yahay duubanaha masiixa iyo in kale. nolosha sayid ciise masiix waxay u ekayd sidii ay u saadaaliyeen nebiyaalkii oo ahayd duubanaha masiixa siduu ku noolaa. filimkan wuxuuna tusinayaa nolosha sayid ciise masiix. waxay ku qoran tahay kitaabka injiilka ah. filimkan jilaa ayaa kaalintii sayid ciise masiix matalaya, inkastoo uusan istaahilin kaalintaas inuu matalo, waase la sameeyey. sidaas daraaddeed waxaa macquul ah inaan fahanno kana faa'iidaysanno nolosha sayid ciise masiix. kow, sidee buu ilaah bilowgii dadka kula xiriiri jiray? 2, sidee buu ibraahim ugu jawaabay kolkuu ilaah la hadlay? 3, sidee aniga u jawaabaa?